dhammaan kasoo qaybgalayaasha workshopka suduwayaasha gobolka iyo dadka kale ka socda muxuu ahaa NGO-yada iyo wasaaradaha dawladda iyo suduwaha wasaaradda shaqada iyo bulshada Farduus Sheekh Saciid aad ugu mahadnaqayaa oo mahadsantiisa uga soo qayb gasheen workshopkeena inuu socdo doona 2 cisho waxaan ku saabsan yahay si loo faafin lahaa qorshaha guud ee lamaanaha oo dhawaan wasaaradda shaqada iyo bulshada sameysay qorshahaas wuxuu daboolayaa 5 sano oo ka bilaabmaysa 2013 ilaa 2017 ilaa 2017 marka waxaan doonayaa qorshaha dadka la gaarsiiyo oo ay fahmaan wasaaradda ay qosayso iyo NGO-yada ay qosayso si qorshaha loo fuliyo marka hore wasaaraddu waxay lahayd qorshe siyaasad marka siyaasadii si loo fuliyo siyaasadii lamaanaha ayaa waxa loo sameeyay qorshe marka waxa si kaashadeen wasaaradda hay'adda la ilaahay Women oo hay'ad ka shaqeysa arrimaha lamaanaha iyo horumarintooda iyo wasaaradda madaxdeeda iyo waxa si kaashaday shaqaalaha iyo dhammaan wasaaradaha kale marka qabanayso waxa ugu horeeya marka qorshe cad lahaato qorshahaas marka wax sahlaya in hawl la qaban karo in aad ogaato waxa ku qorsheysan halka tagiso sida aad ku qabanayso waxa filayaa kolka inaad ka qayb qaadan doontaan doorkiina iyo meelaha kaga aado kolka fikradiina halkan ka eegi doonaa sida loo fulin karo caqabadaha inaga hor iman kara waxa soo dhan marka waxa ku soo dhaweyn doonaa Farduus Sheekh Saciid si ay nagu furto waa suduwaha gobolka soo dhaw runtii faahfaahintii waxay siiyay Xasan oo ka socda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada qaybteeda genderka ujeedadan ku yeerayna waa sidoo sheegay seminar inoo socon doona 2 cisho kuna saabsan hirgelinta National Gender Policy oo mar hore la sameeyay ayaa loo sameeyay si loo hirgeliyo maxay hay'adaha qorshe marka runaantii waa wasaaradda kaliya labaan u maleeyaan hadeer policy kale genderka xuquuqo fara badan oo haweenka iyo ragguba ay wada leeyihiin gender dumar maaha raggiba uu ku jira xuquuqdaasi ha ahaato dhinaca caafimaadka waxbarashada political participationka wixii xuquuq ee kolka asaasiya ayay ka hadashaa siyaasaddaas way fahmi doontaan qorshaha loogu talagalay hirgelintiisuna waa wax baan ku wasaaradaheena u dhaxayn doona waan idin salaamayaa noo furan seminar ku salaam calaykum kulli taqdiid al-usra barnaamijkan amba doorka ku saabsan lamaanaha amba usrada jaangooyada ama nidaamka loo sameeyay qorshaha loo sameeyay waa mid aad iyo aad shariicada islaamka soo dhaweynayso waxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tacaawuna 'ala al-birri wa taqwa wa la tacaawuna 'ala al-ithmi wal 'udwan wanaaga iyo samafalka isku kaalmaysta marka waan idigu mahadnaqanaa inay tahay door aad qayim ah oo halkiisii ku beegan maxaa yeelay usradu ama lamaanu waa laf dhabarta mujtamaca ummad haddii taasi toosnaato ummadda dalka yaa kor u kacaya marka waa lidigu hambalyeynaya waana hambalyahan dileenahay jazaakumullah kullay majhuurina waatino ilaahayna wad ugu dhawaanaysiin waxaana aboon ka soo qayb galayaashu inay dowrkaas si weyn uga faa'iideystaan si ay usrada iyo lamaanaha iyo ujeedada laga leeyahay u fahmaan ummadana insha Allah ugu gudbiyaan وانا ما تسين وجزاكم الله